wax allaali wax dhibaato ah saaxiibtinimadayadii wanaaggeygii abaalkiina waa mid aan u hayo oo joogta laakiin go-aankii garabka Jamaal Cali Xuseen iyo halkii ku beeri doonaan waxay noqonaysaa maadaama ay guddidii ku kala jabtay in guddidii markaa mandatekeeda uu dhammaaday oo aan go-aan midaysan ay keeni waayeen dibna anigu iigu soo noqday maanta waxaan u sheegayaa shacabka Somaliland taageerayaasha xisbiga taageerayaashii nala soo halgamay dadkii la garab taagnaa mar walba in maanta laga bilaabo gacmahayga ku jirto aniguna aan taladayda dib ugula noqon doono guddidan oo la shaqeynaysa raggii dadkii la soo halgamay xildhibaanada xisbiga ka soo baxay codkooda ku soo saaray kuwii soo baxay iyo kuwii dhisay iyo kuwii aan nasiibkuu siinba dibadda dadkii joogay qurba joogga ahaa nala shaqeynaya laamaha dibadda mas-uuliyiinta ka ahaa dadkii oo midaysan dib baan ugula noqonayaa waana ka fikirayaa ayaamaha soo socda anigoo u dhayda laftirkeyga markii horeeto go-aan ku qaatay inaan siyaasadda dhinac uga yaro leexdo oo aan xisbina ku biiran laakiin dadku meel ku biiraan ayaamihii ugu dambeeyey waxa ay taageerayaasheeda iyo dadkeedu igu dhiirigelinayeen oo igu cabirayeen inaanan taa aanan samaynin laftirkeyga aan cid culayska saaro oo aan anigu ku dhaydo shaksi aan ka badhayn marka aniga iyo intii iraacsan iyo intii xisbiga garabkayguna insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan sida ugu dhaqsaha badan leh ayaamaha soo socda wiiga soo socda horaantiisa inaan ku dhawaaqi doono meeshii aan ciidayda waxaan ku wareejinayaa Xuseen Xasan Barnax oo ahaa aasasayaasha xisbiga toonkiiba markii ugu horeysay ee siyaasadda lagu dhaxalko way ka burburtay soo saartay oo tacabad gelisay dagaalkii uu cadaad gashay waxay keentay in musharaxnimadii adiga aad weydid waxaan inta badan markii aad ahayd mucaaridka musharaxayd ku celcelin jirtay in Muuse Bixi Cabdo musharaxa kulmiya iyo hogaamiye Faysal Cali Waraabe dagaal ay ku jiraan waxaan soo baxay maalmihii ugu dambeeyay oo sheegaya inaad xisbiga kulmiyada hadal furtay taageerayaashii iyo isbedelkii ee dhalinta ku dhacday aad ola jirtay isbedel baan sameynaya hooyahan baan ahay Mareykan baan ka qaatay isbedelka lagu jeclaa Jamaalow ma waxaad haysa wax ka duwan waxa saaxiibada wadan ay ku beereen mise kulmiyaad ku biri doontaa oo halkaad geed wata ku sheegay waxaad weydiinaysaa saaxiibso anigu aqoonyahan baan ahay ma oran waa ahay waa sheegtay waan ahay oo muddo ilaahay waa iyogs siyaasadda haddii aan xataa Muuse Bixi iyo dadka kale aan eego siyaasad wax dhibaato kuma jiraan dhammaantoodba waa ku biiray isagoo la cod ahaa ciro ninka la yidhaahdo Saleebaan Gaalmo waa kii ku biiray siiyay saad kaleede orta de ma gaala ma nimankaas siyaasaddan weligeed way jiri jirtay dad cod ahaa oo marka dambe isku biiray siyaasaddan oo oran jirtay weligeed baa tii loo oran jiray siyaasaddu saaxiib joogta ma aha dan joogtaa bale Soomaaliland baa ku baray waxaan ku sheegayaa go-aanka iyaga anagu weli gadaal ma ka soo jeedin saaxiibadaydana way naga degdegeen maanaan kala fogay ku dhowda maanaan kala fogay way naga degdegeen marka taasi macnaheedu ma aha ama iyagana ka daba tegaynaa ama kulmiyaan tegaynaa damashan doono tegaynaa Soomaad fahmin haddaan doono dhexdhexaad baan iska joogaynaa markii conclusion hagaani boqoladaas waa ku bannaan optionskaas oo dhan waa qaar noo bannaan weeye laakiin waxaan jeclay saaxiibaday inay go-aankii aan dibnayn dib loo soo noqdaan anagoo midaysan oo isu caloolfiyo oo caadiyada in si fiican maartay soo fiican waxa kale oo ku sheegay haddii xataa ay dhacdo inaad meel aan ku kala leexdo dadka fikirka ku kala leexdo baalka tiin kari waa loo ducaynay imika waa naga ducaynay Soomaad fahmin anaguna waana ku sheegay saddexda waddan loo badan inaan saaxiibaday ka daba tago ko oo shan laba inaan iska joogno oo aan meel la tagin
saan kuu sheegay inaan kulmiye ku dhiisatagno waa nin kuu sheegay kulmiyeba rag noocaas oo kale oo ka horreeyay la dawey garay saleebaan iyo gabdho sare oo dee siyaasiyiin waaweyn rubcadaaya laftigooda wixii ay sameeyeen waxaa sameeyay